asalaamu calaykum ardaydeeda aaweyta waxaa idin wadaa maxay tahay proverb ayaarna inaan ka hadalno proverb in soomaali ama luuqada soomaaliga macna ahaanteeda waa mahmaah inta anin garanayo haddaa adiga ay gu dhantidna iisoo qor commentiga cashirkan waxaan rabaa inaan uga hadlo hal mahmaah oo english ah mahmaadaas intaana gudagelin please waxaa ka codsanaya inaad followda soo badisaan cashirkan la wadaagta asxaabtiina youtube-kayga aad soo subscribe garaysaan oo fooqataan dadka sharafta leh dee waxaa lagu yaqaanay in ay dhiirigelin sameeyaan anigana ay dhiirigelisaan adinkana wax iga faa'iidaan alright so cashirkan wuxuu ku saabsan yahay proverb la yidhaahdo an empty vessel makes the most noise okay an empty vessel makes the most noise hore muu maqashay mise haddaa maqlaysaa an empty vessel makes the most noise hore muu maqashay arday mise hadda kugu horeyso haddaba marka maxaa laga wadaa mahmahdan usually mahmahyad markii la sheegayo micno guud ayay leeyihiin macnaho qaar waxaa waaye macnahooda way qoto dheer yihiin so marka ani si guud ayaan rabaa inaan u fiiriyo sababta usoo qaatana meesha ku jirta generally haddaa fiirin waxaa waaye a person who talks or who talk too much usually does very little horta mahmahdan waxay ku saabsan tahay dadka hadalka badan oo wax ii sheeg aanan waxqabadkoodana yaryahay dad hadal badan oo waxqabadkooda yaryahay ayaa looga hadlaya si guud marka aan si gaara u micneyno oo isku dayno waxay tahay an empty vessel waxaa laga wadaa weel maran makes the most noise weelkaasi makes wuxuu sameeyaa the most noise qaylo fara badan buu sameeyaa weelka markuu uu eber yahay dee shanqartiisu ay dheertay laakiin markuu buuxo shanqartiisu way yar tahay oo wax shanqara ma laha so that is why loo soo qaato lir dadka hadalka badan oo buuqa badan oo faanka badan oo istustuska badan oo meel walba inay ka muuqdaan badan waxba kuma jiraan waa an empty vessel makes the most noise haddaba hadhowdi haddaa aragti qof war badan oo hadal badan oo been badan oo faan badan waxaa kugu soo dhacayo an empty vessel makes the most noise aa kugu soo dhacayso haddaba english haddaa ku sharaxna waxaa la yidhi people who know little dadka garanaya wax yar or have no real substance substance waxaa laga wadaa aqoonta waa wadarta guud oo qofka uu u baahan yahay inuu yeesho sida aqoonta xigmadda caqliga kartida ayaa la yidhahdaa substance markii laga hadlayo sidoo kale knowledge halkaan ay soo galaysaa so people who know little dadka wax yar yaqaano ama garanayo wax yar or have no real substance oonan lahayn caqli iyo aqoon iyo xigmad lahayn talk the most ayaga ayaa ugu hadal badan or make unnecessary noise ama waxay sameeyaan buuq iyo qaylo aan loo baahneen malay fahmaya okay halkaan waxaan kusoo sheegay waxaan idhi a person who talk too much qofka zaidka u hadla usually does very little caadiyan wuxuu sameeyaa wax qabad yar because hadalkiiba energy dhan ka cunaya haddaba dad waxaa kasoo horjeeda dad aamusan dadkaas maxay yihiin waa dad knowledgeable oo aad u cilmi badan oo aqoon badan dad wise waxaa waye xikmadda waaye qofka markuu aqoon leeyahay xikmadiisana way ziyaadaa sidoo kalena waxay noqdaan dadkaas dad mature matureka waxaa waaye qaangaarnimo ma ahan physically muuqaal ahaan qofka inuu u qaangaarayo laakiin wuxuu noqonayaa qof koray oo maskaxdiisa kobacday oo wax badan bartay oo khaladaadkiisa wax ka bartay oo dadka macaamilkooda fahmay oo wax badan asaga naftiisa ku saabsan bartay ayaa la mature dadka noocaas ama calaamadahan leh maxay yihiin waa dad calma dad degan weeye quiet oonan buuq badnayn oo aamusan speak less tan ayay la xiriirtaa ayagana waa dad hadalkoodu yaryahay haddaba dadkan ayaa dadka caqliga iyo xigmadda u saaxiibka ah laakiin dadka noocan oo waxba aanan wax yar garanaya ama waxba garanaynin dadka waxaa weeye aadka u hadal badan oo aadka buuqa ah iyo qaylo aanan loo baahnayn sameeyo waay haddaba examples in real life aan aragno dadkaas waxay yihiin waxaa la yidhi someone who knows very little qof oo wax yar garanayo about a topic mawduuc wax yar ka garanayo argues the most waxaa arkaysaa someone qof who knows very little qof oo wax yar garanaya about a topic mawduuc ayuu wax yar kasoo akhriyay ama kay bartay then wuxuu iska dhigaa qof wax badan yaqaano wuu murmaya argues the most aad buu u murmaya haddaba waa aragna dadkaas social mediahana ku aragnay dad dabeecadahan laana way buuxaan hadda qof waxaa arkaysa buug buu la ordaa qalin buu wata wuxuu ku leeyahay macallin baa ahay nin wax bartaa la yidhaahdaa wasiirka wax bartaa ahay hebel magacayuu baxsaday buuq buu wadaa halisoo raaco kan baa sameynaya waxbuu sheegayaa dad fara badanoo ku degmaayo oo dadkaasi raacay because they don't know mahmadan ma garanayaan
mana ogo in dadkan buuqayo oo qaalinaya ay yihiin dad aan waxba la joogin because inta waxaan ku nahay waxaan ku sheegnay waxaan someone who knows very little qofka wax yar garanayo about a topic mawduuc ayuu wax yar ka garanaya argues the most aadna u murmaya salaano kale hadda nin waxaa jira waxyaalo diinta wax ka soo bartay dhowr xadiis uu soo aqriyay quraanka waxyaalo ka soo bartay waxbarashadiisa ma dhamaystirno ma kaamilno social media imaanaya waxaas waa xaraam hebel waa gaal waxaas gabadha sameynaysa waa gaalo kan bay ku dhacday balaayo akhrinaya dadkii uu gaalaysiinaya dadkii buuq buu sameynaya xaaraamtii wax walba uu xaaraameynaya asaga wixii kasoo horjeesto dhan waa khaldan yihiin ama asaga waxaan ahayn dhan waa wada khaldan sababtoo ah wax yar uu soo bartay wixii uu yaro soo bartay wuxuu ku sameynaa muran iyo dood iyo qanjac uu ku xoojinaya si uu isaga dhigo qof wax bartay badanaaba ama sida caadiyan qofka wax bartay oo aqoontu saaxiiba halkan ku soo aragnay waxa weeye dad maxaa waaye calme quiet hadalkoodana waa yaryahay so inta buuqayso dhan hadda ujeedid waa an empty vessel makes the most noise. All right, so next example waxa waaye people who cause dadka sababa usually have no real solutions. dadka halkan waxaa ka booday problemka waaye problemka dadka cause gareeya maxaa waaye xal ma hayaan oo xal ma keenaan wey people who cause problems usually have no real solution. sorry call ay usoo dhexgalay halkan waxaa leenahay people who cause problem or drama or problem usually have no real solutions. dadka cause gareeya ama sabab u noqdo problemyada ama dramarka oo mar walba barnaamij keeno oo barnaamij iyo dhibaato abuura usually caadiyan have no real solution wax xal ma sameeyaan ama xal ma keenaan xalkan ayaga hortaaganba sidoo kale halkan waxaa weeye examples in sentence jumlada si loogu isticmaalo fiirinayna wise people stay calm. wise people dadka xigmada u saaxiibka stay calm waa dad degan oo mar walba iska degan but an empty vessel makes the most noise. laakiin dadka aan waxba garanaynin aad ayay u qaaliyaan sidaasay leedahay dadka caqliga iyo xigmada iyo aqoonta u saaxiibka ahaan way buuq badan yihiin. okay next waxaa waye he talks a lot about business. wuxuu aad uga hadlaa business ayuu ka hadlaa but laakiin he has no experience wax khibradna ma lahan sababtoo ah an empty vessel makes the most noise. halkan jumlada waxay sheegaysaa qofba wuxuu ku leeyahay waxaa aqaanaa businessyada sida hebel online wax lagu qabto hebel waxaas aqaanaa is xaysiinaya maanta dhan laakiin qofkaasi markaa wax wareysatid ama wareysi ama talo weydiisid waxaa waaye wax experience mala aqoonna ma hayo waxba ma hayo sababtoo ah an empty vessel makes the most noise. hadda waxaan